الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaa iga horeeyay warka wasiirkii wafdiga hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta Cali Xoosh, laakiin kelmad yar haddaan dhaho runtii sharaf weyn bay noo tahay markii labaad aniga inaan imaado caasimadda dowlad goboleedka waqooyi bari Laascaanood oo markaan ay ka duwan tahay dhadhanka iyo caraftu ay ka duwan tahay tii hore kana macaan tahay. waxayna uga macaan tahay in maamulkii la yagleelay ee halganka ku yimid in maanta madaxweynihii federaalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo imaanayo barakaynayo hambalyeeynayo asagoo xagga ka soo hambalyeeyay xagga ka soo aqoonsaday, laakiin inuu lugihiisa ku imaanayo dhadhan gaar ah leedahay. dadka dowlad goboleedkan macna gaar ah ugu samaysan tahay, Soomaalina macna u leedahay. dadka deegaankan waxba laga buuxiyay, madaxweynaha ma soo socdo wixii saas weeye, dacayad badan baa faaftay. madaxweynuhu waa kaas imaanaya, horta taasi ku baabaaday. dadka Soomaaliyeed iyo adduunkana fariintay u diraysa waxay tahay in mashruucii go'aan-goosadka lagu soo gabagabeeyay halkaan oo lagu aasay, haddana loo imaanayo in adduunka la tusiyo waxa halkaan ka jira oo kooxda go'aan-goosadka ay wadaan iyo Netanyahu-hooda inaysan waxba ka jirin. dhulkii la isku dhihi jiray British Protectorate Somaliland ama magacaasna inaasaas lahaa yaan dhex taagannahay. saakaan soo qoray hadal yar oo xoogaa dadka wareeriyay. fariintaasi meel kale ku wajahnayd waxaan ula jeednay anaa wacdaynaya waxaan ula jeednay adduunkana u sheegaynay ardu Soomaal wax la yiraahdo hadda ma jirto. ardu Soomaal ama Somaliland waxa la isku dhihi jiray dhulka hadda aan joogno iyo midkaan kooxda go'aan-goosadka ay joogaan inaan meel ka mid ah weliba dhulka intii nuskiis inaan u soconnay ahayd fariintu adduunka loo diray, waana la diri doonaa maalmaha halka aan joogno. waxaan marka ay leedahay dhadhanka ay leedahay waxay tahay meeshan waa buundada midnimada, waa saldhigga midnimada Soomaaliya. taasaa qof kastoo ay tagana sharaf u tahay. wasiiradii dowladda Soomaaliya oo dhanna iyo dowladdii Soomaaliya xildhibaanadeedii iyo ummaddii Soomaaliyeedba indhaheedii iyo joogitaankoodiiba halkaan ay joogaan maalmahan. marka marti culus baa idiin joogta, laydinkala dardaarmi maayo soo dhowayntooda. waxaana idinkaana runtii sababay, dadka deegaankan baa sababay in intaasoo Soomaaliya la martigeliyo ayadoon wax cabsiyi jirin. cid laga cabsanaya Ilaahay baa laga cabsanaya kaliya. marka aad iyo aad baan u mahadsantihiin. anigana waxay ii tahay sharaf gaar ah. bilowgii baan la soo bilaabay, ninba meel buu kala soo qabsaday. bilowgii baan wax ku lahaa. waa mahadsantihiin.